Asalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ah. Ku soo dhawaada mar kale fiideo kale. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka. Adigoo mahadsan. Maanta casharka wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Ku soo dhawaada. Soo dhawaada asxaabta mar labaad iyo mar saddexaad. Sidaad ciwaanka ka arkayseen maanta waxaan doonayaa inaan idinku sharxo fiideogan sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Run ahaantii application-kan ayaan isticmaalaa aniga Pixlab la yiraahdo. Waana Pixlab application inaba aan caadi ahayn oo lagu sameeyo YouTube thumbnail. Dadka intooda badan way isticmaalaan application-kan. Marka application-kan waxaad ka helaysaa Google Play Store ama waxaan ku soo dhigayaa description-ka linkiga application-ka aad ka heli lahayd. Marka haddii aad isticmaalayso mobile waxaad ku samayn kartaa YouTube thumbnail aad u qurux badan, midkaas oo soo jiidan karo kumanaan dad. Marka haddii aad balse laptop ama computer isticmaalayso waxaad ku samayn kartaa YouTube thumbnail programmada lagu sameeyo video editing kuwaas aad u fiican, balse application-ka markay imaato application ahaan waa app-kan Pixlab lagu magacaabo mobile-ka. Marka hore application-ka soo furanaysa kadib text-kan delete ayaan dhahaynaa ma rabno hadda. Waxaad imaanaysaa haddii aad doonayso YouTube thumbnail saddexdaas dhibic kor geeskan dhinacaas kadib waxaad imaanaysaa image size meel ay ku qoran tahay. hadda waxay tahay custom ayay noo tahay. Kadibna waxaad ka sii raadinaysaa YouTube thumbnail waa kana okay. Kadib waxaad leeyahay okay. Sawirkii hadda wuxuu isku bedelay sidii YouTube thumbnail oo kale. Haddii aad doonaysid inaad wax ku soo darsato balaastaas kor ayaa taabanaysaa. From gallery aad daysaa haddii aad inaad wax ku darto hadda waxaan soo qaatay YouTube app oo ah PNG. Okay. Kadib YouTube app markaan soo qaatay balaas ayaan taabanayaa, text ayaan taabanay, kadib qalanka ayaan sii taabanayaa. waxaan ku qoraynaa YouTube. Okay. Marka hadda background color-ka inaan bedelno aan rabnaa waxaad imaanaysaa meeshan labadan is dul saaran ah qaybta hoose kadibna color ayaad imaanaysaa. Color-kii aad rabto ayaad ka dooranaysaa. Aniga waxaan ka dooranayaa midka jaalaha ama orange-ga ah. hadba waxaad color-kii aad jeclaysato ayaad ka dooran kartaa. Okay. YouTube app YouTube hostida kadib waxaan ku sameynaynaa text qalinka ayaa taabanaysaa. waxaan ku qorayaa sida kadib color madow ayaan ka dhigay. Okay, meeshan waxaa ku jira farta aad ka bedeli fontyaal badan ayaa ku jira. Okay, hadda qurux waay marka sida loo sameeyo. kadib waxaad imaanaya qalinka ayaad imaanaysaa kadibna qalinka ayaad sii dooranaysaa sida loo sameeyo YouTube thumbnail. Okay. intaas ayaan kusoo darnay hadda sida loo sameeyo YouTube thumbnail. muhiim ah inaad hadda casharka aad si fiican ama aan u sameeyo, balse waxa muhiim ah inaad ogaatid inaad si fiican aad ugu samayn karto application-kan YouTube thumbnail aad u qurux badan ayaad ku samayn kartaa. application-ka eedaas ayaa imaanaynaa kadib waxaan kasii dooranaynaa stroke ayaan kusoo daraynaa. marka stroke badan ayuu leeyahay. color-kaad jeclaysato waa kana hadda masha Allah qurux sida loo sameeyo YouTube thumbnail. haddii aad doonso sawir kale ayaad ka soo darsan kartaa. balaas ayaan taabanayaa, from gallery ayaan okay. hadda waxaan doortay mobile frame PNG ah.
midkaas ayaad sameynaysaa. Okay, haddana waxaan sameynayaa inaan dhex geliyo YouTube appkii mobile framekii aan hadda waday. Okay asxaabta, waxaan la sameeyaa applicationka iyo YouTube appka ayaan isla sameeyaa, kadibna mobile framekii ayaan dhex gelinayaa. waxaana kusoo darayaa haddana text plus ayaa dhahay, text qalinka ayaa taabanay mar labaad, waxaan qoraynaa adigoo isticmaalaya mobilekaaga. textiga hadda waan iska yareynaynaa, tt meesha ay qoran tahay ayaa dhimanaysa, kadib waad yareynay text. Okay, color ayaa imaanayna haddana text colorka adigoo isticmaalaya mobilekaaga. sidaan waxaad ku sameyn kartaa YouTube thumbnail aad iyo aad u qurux badan. fadlan haddii aad ka heshay videogan like saar, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. intaan ka kulmayna videogan videogiisa saddexaad insha Allah.